من مشرحين تكون عنه إن يقولها صوق جلان إن متقنا أي برلمان كأيسن شريسن إن يهين تذكر ندد واي أرجع أو أول خبرات بنوحن ولا هاي أنا مركي هل كان أنيماني أو برلمان كأسوق لي دم دحين عبد الله وحن ودي على جاس وها دني كانوا سياسات ده كوسا ولا شغيني مركي ودم السنة سوق تضوعد وته وماشي كبح مركي تبليغ سياسات وحوي ورميش عن واحد كسب به دونا وحي الله وقريوي سيدا كرسي كان إلهي يقرأ يعني إن كفر استمانت بقفك الله حقي سووا قرنوا كفر يسندونا. سودو حلبان عبد القادر فارح داشنه وكمل مدنيش برلمان كبوتلان مر لبعض أيو قالها كسر لحم مقضي سووا مركي هرنا كملها حلبان هذا آت كلو يقانه أما وقعد كدير dadka qaar ugu qaylada badan bay dhahan xilwan soo dhaw horta ugu horeyn soo laabashada mar labaad sidee ku timi bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeyaa ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland maanta waxa soo dhameystirmay golihii baarlamaanka oo 66 xubnood intii ka dhimanay ayaa la dhaariyay waa ku faraxsanahay runtii marka labaad waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland iyo musharaxiinta siyaasadda ku loolamaya kursiga madaxtooyada iyo kan baarlamaankaba oo maanta uu soo dhamaaday shuruudihiisii guddigiina loo qabtay waxaan leeyahay marka koowaad musharaxiinta runtii waa rag aan qaano dhammaantood waa reer Puntland waa rag aan oran karo waa niman iyaga iyo aabayaashood bay ahaayeen niman mujaahidiina oo dalkan u soo halgamay runtii magacana ku lahaa qaarna ay ka mid yihiin asaasayaashii iyo waliba raggii dhibada u istaagay Puntland marka waxaan rabaa inaan qodobkay iyo baaqaan diraya waxay tahay baarlamaankani waa baarlamaankiini waa baarlamaan laga soo xulay gobolada dalka uu qaybsan yahay iyo beelaha reer Puntland oo aad madaxda u wada ahaan jirteen ama aad saaxiibada la wada haydeen waxaan rabaa inaad mataqaana baarlamaanka lagu kalsoonaado sida maanta aan ka wada hadalay waxaan direynaa tabliiq siyaasadeed baan u baxaynaa waxaan u tagnaa musharaxiinta waxaan rabnaa inaan musharaxiinta kala hadalno inaan aanan ahayn mataqaana baarlamaan halkan inta iska roga lagu soo qaaday lagu soo xareeyay ee aan nahay baarlamaan maskaxdooda iyo fikirkooda iyo maankooda intaba xor u ah inaad ku kalsoonaataan marka baarlamaankan laga dhex kaambeyn gareeyo waliba niman kaambeynka yaqaano aad u yaqaana ku dhex jira baarlamaanada dhexdooda yaqaana dadkuna ay kalsooni ay ku qabaan marka horta in la aamino taas ayaan baaq ugu daraya waxay leeyihiin baarlamaanka waa soo xulistiisii wax farba ku godnayd odayaal xalay hadlay baa jira waxay leeyahay baarlamaanku in laga dhex kaambeyn gareeyo ama laga dhex kalluumaysto waa adag tahay maxaad ka leedahay arrintaa xulidda baarlamaanku sidii ay horeba u dhici jirtay u dhacday laga soo bilaabay Cabdullaahi Yuusuf laga soo bilaabay waqtiga Cadde laga soo bilaabay waqtiga Cabdiraxmaan iyo waliba mataqaana Cadan Muuse iyo Cabdullaahi Cali Gaasba wax ka duwan oo hadda meeshan ka dhacay oo lagu oran karo waa laga dhex kalluumaysan kara ama waa la soo xushay ma jirto qayladuna waligeed waa jirtay madaxweyne aan soo xulo baarlamaan intuu meesha aan laga daba qaylin ma jirto baarlamaankuna halka intii hore u soo xulatay oo hadda lagu eedeynayna qof kama soo noqon Cabdullaahi Cali Gaas baa u dameeyay 50 xildhibaan buu gacantiisa ku soo qoray markii uu dameysana 7 cod buu helay cadda waa ogeedeen Cabdiraxmaan baa alleelaha isaguna waa ogeedo Cabdullaahi aan dalkaba joogay 3-4 bilood baa xukunkii helay waa qofkii alla u qoro marka baarlamaan sidiisaba waa baarlamaan ninna meel ugu xareysna ninna ma taqaana isagu meesha ma joogo marka in la aamino baarlamaanka waxay ka wanaagsan tahay in baarlamaanka banaanka laga eedeeyo sababta waa nimaad isu rantiin isuna imaan doontaan mid labaad dalka maanta dawlad baa u dhisan mar haddii baarlamaanka la dhameystiray meeshana uu joogo sifo kasta uu ku yimaado ninka walba reer buu ka yimi haddana walba reerkiisa uu meesha ku bantalaa marka Puntland laga yimaado marka waxaan oran karnaa baarlamaankan bari hadduu ama saadama guddoon yeesho dawladda Puntland waa dhisan tahay musharaxiintu baaray iyagana waxaan u rajeynayaa inay ka soo qayb gali doonaan oo imaan doonaan tabliiqa siyaasadda aad u baxaysaan muxuu bedelayaa tabliiqa siyaasadda wuxuu bedelayaa in baarlamaan musharaxiinta ku qancino inay golaha soo galaan in mataqaana ay baarlamaanka aysan sharaysan inay yihiin dadkan dad waay araga oo waliba khibrad baan waxaan u leeyahay anigu markii halkaan aan imaanayay oo baarlamaanka aan soo galiyay madaxweyne Cabdullaahi waxaan waday Cali Gaas oo ahaa ninkan siyaasadda ku soo wada shaqeynay markii uu dameysana isagoo 7 cod wata buu meesha ka baxay marka tabliiqa siyaasadda waxa weeye war meeshan waxa ka soo bixi doona wixii alla u qoray weeye sida kursigan ilaahay igu qoray aniga inaan ku fariisto maanta baa qofkii alla xaqiisa ugu qoran oo ku fariisan doona marka ilaahayna in la aamino shacabkana aan la
mataqaanaa aan la barakicin siyaasadaha ku gadaaman Puntland oo ama ka imaanaysa federaalka ama ka imaanaysa wadamada jaarka oo hadda waxa saylac iyo ka dhacay Djibouti aan ognahay khibradda aan u leenahay inaan la sii taageerino waxa maanta jira Soomaaliya inaan fuel lagu shubin baa la rabaa marka baaqa aan u dirano siyaasadda waa baaqaas hal aamina baarlamaanka kalsoonina ha lagu qabo annagana hanala aamino adeega mareeg sweep account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay